الرحيم golayaasha aqalka sare iyo baarlamaanka safiirada marti sharafta kale gudoomiyaha haweenka Soomaaliyeed bahda saxaafadda kulligiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. horta ilaahay waa mahad iska leh oo caawa runtii fursaddan qaaliga ahna siiyey iyadoo ay tahay bil Ramadaan 15kii ugu horeeyay. ilaahay waxaan ka baryeynaa inuu dambigeena cafiyo, dambiga waalidkeena cafiyo, ummadda Soomaaliyeed ee dhibka ku habsaday inuu ilaahay ka qaado. waxaan rabaa oo kale inaan mahad celiyo madaxdii maalmihii la soo dhaafay oo madaxweyne Sheekh Shariif ugu horeeyo oo idin soo booqday oo halka yimid oo runtii xanuunka idinla qaybsaday. xaqiiqatan waxaan rabaa inaan raaligelin buuxda ka sameeyo aan idin cudur daaro dhibkii idinku dhacay ee siyaasadeed idinkoo arkayay madaxweynaha iyo golaha waxaan ku yiraahdaa baarlamaanka inay ka shaqeynayeen dastuur aan loo dhamayn, dastuur aan heshiis lagu ahayn, inaad xaqiiqatan aad aadeen deegaankiina si aad u muujisaan inaydan qayb uga ahayn dastuurkan halka dhinac really ka raran. dastuurku waxa weeye waa wax ummadoo dhan ay wada leedahay oo heshiis bulsho ah. waad ka dhiidhiseen taas beddelkeeda waxaad ku hesheen in diyaaraddii idin qaaday ay dib idin soo celiso oo weliba idinkoo markaasi ka degi lahaa Garowe khatar naftiina la geliyey. marka anigu runtii waa idin cudur daarayaa, raaligelina waa ka bixinaya, arrintaas waa ka bixinaya. waxaa laga yaabaa dad inay leeyihiin madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo isaga naftigiisu dee diyaarad madaxweyneyaal ay wadeen yuu ka reebay, ama iyadoo diyaaraddii u socota meeshii ahayd beledweyne yaa la soo celiyey. waxaa la isku khaldayaa wax technical ah iyo wax siyaasadeed. arrintan waa arrin siyaasadeed oo maxaa yeelay idinkoo ka dhiidhiyey dastuurkan halka dhinac ah inaad diidaan darteed yaa laidin soo celiyey, halkana laidinku soo celiyey xabsigana hadda aad ku jirtaan. taas markaan saxo marka ileen beenta lagu soo celiyo marka dambe run iyay noqotaa. waa meesha Soomaalidu tiraahdo been fakatay run ma gaarto. waxaan rabaa fursaddaas inaan qaato oo aan uga faa'iidaysto in arrintaas aan uga hadlo bacdamaa runtii la siyaasadeeyey. arrintaas madaxweyneyaasha 2019 dhammaadkeedii markaas ay dhacday roobab badan iyo biyabax ama fatahaad ee magaalada beledweyne ah. madaxweyneyaasha iyo dadkii la socday mucaaradka ahaa ay damceen inay booqdaan, xaqna waa u lahayn inay xaqiiqatan ay booqdaan, xaq waa u lahaayeen. laakiin wixii dhacay oo soo celiyay diyaaraddu ma ahayn arrin siyaasadaysan, ma ahayn. markaan leeyahay technical, markii arrintaas foosh xun ay dhacday oo aan runtii ka tacsiinaya hadda naftigeeda oo aan really xaqiiqatan aan ka xumahay. markii arrintaas dhacday yaan waxaan la hadlay Maxamed Cabdi Waare oo ahaa madaxweynihii Hirshabeelle. waan ku iri arrintan maxay tahay madaxweyne? isagana xaqiiqatan waxba kama uusan runtii arrintan waxba kama uusan qayb kama ahayn. wuxuu igu yiri madaxweynuhu saakay aroortii markaan maqlay inay madaxweyneyaashu baxayaan oo ay tagayaan magaalada beledweyne yaan waxaan wacay Amazon oo markaas haysata airportka beledweyne. dowladda federaalka ma maamusho airportka beledweyne, dowlad goboleedkuna ma maamulo oo Maxamed Cabdi Waare ma maamulo isaga naftigiisa. wuxuu la hadlay ciidamadii markaas jooga meesha taliyahoodii oo ahaa Jabuutiyaan oo la oran jiray Riyaale. wuxuu ku yiri waxaa soo baxday maxaan ku raahdaa message dhahaya safe ma aha. maxay arrintaas ku dhacday? Riyaale oo ahaa madaxa Amisom ee haysta airportka wuxuu ugu jawaabay notamka soo baxay, message-ka soo baxay
UN ka xukunta NOTAM-ka waxayna sheegtaa airportada safe-ka ah iyo kuwan safe-ka ahayn wuxuu yiri roob badan baa da'ay airport-kana details way waxaan ka hadlayo si aan u saxo wixii dadku aamineen oo aan xaqiiqo ahayn oo la siyaasadeeyay khiyaali wuxuu yiri airport dhererkiisu waa 8,800 oo mitir 700 mitir in la eg yaa biyo fariisteen marka diyaaradaha yararka ah kama degi karaan diyaaradaha waaweyn oo caloosh weyn oo runtii kaargooga ah kaliya ka degi kara oo militariga ah diyaaradaha yar kama degi karaan saas darteed waa in ilaa duhurkii la sugo si biyaha ay uga baxaan meeshaas waare wuxuu ii sheegay inuu soo wacay madaxweyne xasan sheekh uu ku yiri madaxweynuhu waxaan maqlay inaad baxaysaan arrintaasana jirta airport safe ma aha biyaha fadhiya anigana awoodeeda ma aha mana xukumo airport-ka arrintaas khatarteeda leedahay ogow xasan sheekh wuxuu ugu jawaabay hadalkaasi ama afkaasi waa afkii farmaajo warka igala har warka iga jooji waa tegaynay hadda ogaada NOTAM waxa soo saaray UN-ka ciidamadii meesha joogay oo Jabuutiyaanka ahaa oo riyaal ugu sareeyeen wuxuu yiri safe ma aha waa wax awood waare ka baxsan iyo awoodeydaba arrintaas ay u dhacday oo diyaaradda loo soo celiyay kadib markii la kala gareeyay waa ku noqotay saas ay uga dageen wax dowlad goboleedka Hirshabeelle ay shaqo ku lahaayeen ma aha wax dowladda federaalka ahna ay shaqo ku lahaayeen ma ahayn macnaheedu waxay ahayd arrin technical ah laakiin waa la isticmaalay waa la siyaasadeeyay waxaa laga dhigay madaxweynayaashii naftooda in khatar la geliyay anigana naftigayga aan qayb ka ahaa marka laba arrimood isla ma aha arrintan waa siyaasadeysan tahay xildhibaanadan sharafta leh oo damcay inay aadaan deegaankoodii wada tashi ay la galaan dowlad goboleedkoodii arrintan dastuurka aan ay ka hadlaan waa la xanibay siyaasad baa lagu xanibay laakiin taasi waxay ahayd arrin technical ah UN-ku ay qayb ka ahaayeen AMISOM-na ay qayb ka ahaayeen marka saas darteed waxa weeye inaan uga faa'iideysto arrintaasi inay ahayd technical arrintan ay tahay arrin siyaasadeed marka dadka isku khaldaya oo leh farmaajo kama hadli kara hawshan waxba kama jiraan maxay u socdeen marka waxay u socdeen waxay arkayeen dastuur hal dhinac ka raran dastuurkana waxa weeye waa wax la wada leeyahay wax jujuub iyo xoog lagu ansixiyo ma aha wax la iibsadana ma aha wax ansax waaye la yiraahdana ma aha ansax waxa weeye waxa la yiraahdaa wixii shuruuc iyo xeerar ah laakiin arrintaani dastuurka la leeyahay waa arrin midnimada Soomaaliya iyo wadajirkeeda aasaas u ah haddii marka aadan ka shaqeyn wadajirka iyo midnimada Soomaaliyeed dee dastuurka saarta yeel marka ilaa waa inta kaliya hadda isku kayna haysa weey kumeel gaar ha ahaado maalin walba waxa la leeyahay kumeel gaarka laga saaro sababta kumeel gaar uga bixi la'yahay waxa weeye arrimaheena gudaha ee siyaasadeed weey wadamo badan yaa kumeel gaar provisional haysta waxaa ka mid ah South Sudan waxaa ka mid ah Sudan waxaa ka mid ah Libya waxaa ka mid ah Syria intaasna waxay qabaan duruufaha qabno sababta ay u leeyihiin kumeel gaar ama provisionalna waxay tahay iyagii baan is ogolayn saas darteed markii dadku is ogolaado oo dadku ay walaaloobaan ay ku heshiyaan hal dawlad iyo hal nidaam iyo hal system markaas way marka laga saari karo maxaan ku raahdaa dastuurka provisional laga saari karo la gaarsiin karo inuu yahay dastuur dhameystiran madaxweyne walba waa fahmi karaa marka uu ballanta qaadayo uu doorashada galayo qof kasta musharaxa wuxuu yiraahdaa waa qabyatiraya waa dhammaystiraya macnaheeda dhammaystirku ma aha inaad qorto hal habeen baa lagu qori karaa saacad yaa lagu qori karaa inteena qori karnaa laakiin culayska wuxuu ka taagan yahay in la heshiiyo oo heshiis iyagoo dadku ah ay isla qaataan hadda ka hor xilligii anigu aan madaxweynaha ahaa
yaa waxaa ay yimid senator cabdi qaybdiid iyo raggiis bacdamaa uu ahaa isaga guddoomiyaha labada aqal ee dib u eegista dastuurka. cabdi qaybdiid wuxuu igu yiri waa dhammaystirnay, senator cabdi qaybdiid wuxuu yiri waa dhammaystirnay, hawshii waa noo dhammaatay, waxaa noo harsan inta keliya oo loo baahan yahay in laga heshiiyo oo ah siyaasad oo ay ka wada hadlaan oo ay ka heshiiyaan dowladda dhexe federaalka iyo dowlad goboleedka. annaga waa naga soo dhammaatay, waxaa loo baahan yahay markaan in arrintii siyaasadda waxa la wada leeyahay, waxa la kala leeyahay, waxa gaar loo leeyahay in lagu cayimo, lagu caddeeyo dastuurka oo iyadoo heshiis lagu yahay inta dowlad goboleed aan nahay iyo dowladda federaalka la ansixiyo. waxaan ku yidhi dee 5 dowlad goboleed keliya Soomaaliya ma aha, waxaa ka maqan qayb muhiim ah, dhul iyo dad qiimo badan oo Somaliland la yiraahdo. ma iyagoo maqan yaan dastuur dhammaystiraynaa? haddayba sheeganayaan dhib iyo eedo sheeganayaan oo loo baahan yahay inta lala fariisto oo lala xaalo, weliba la xaal mariyo oo wixii la galay oo dhib ahaa oo sheeganayeen in lala fariisto. hadda haddii annagu aan waxayna qaadanno oon duuduub ku qaadanno 5 dowlad goboleed iyo annaga, maxaa iyagu soo haraya? maxayse u qaadanayaan? marka haddii iyagu ay yiraahdeen bannaankan ka istaagni, annaguna ma validation yaan ku samaynaynaa, ma u xaqiijinaynaa in ay bannaanka naga joogaan? sax maaha. dastuurkan wuxuu dhammaystirayaa markay Soomaali oo dhan iswada ogolaato. waa sax, qoraalka waa noo fiican yahay, laakiin iyagu naftigooda Somaliland waxbay rabaan, iyagoona laga talagelin dee markaasi waxay u ekaanaysaa in la sii fogeenayo. marka senator ilaa Somaliland la helo, anu waxaan qabaa dastuurkaani inuu iska ahaan doono sida uu yahay. ceebna ma aha, waddamaa jira aan dastuur lahaynba, qoran aan lahayn, oo dee waddamada ugu qanisan adduunka. New Zealand ka mid ah, UK baa ka mid ah, United Kingdom oo waddamada ugu duqsan ah yaan qoraal dastuura lahayn. marka waxaasoo dhan waxa weeye dastuur haddaad maqasho waa mideeye, waa wax dad ku midaysan yihiin, ma aha wax qof uu keligiis qaato uu jeebka gashto, ma aha. marka sidaas darteed madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan u sheegayaa maadan dhammaystirin. maxaa yeelay Somaliland waa maqan tahay, Puntland iyo Jubbaland waa iyaga soo saaray warqadaha xalay oo maxaan ku raahdaa yiri annaga qayb ka mani. marka hadda ma oran kartid qayb ka mid ah Soomaaliya oo muhiim ah, qayb kama tihiin wada tashiga iyo talada iyo dowladnimada Soomaaliya, ma oran kartid. marka madaxweyne waxaan ku leeyahay aqliga ha kuu soo noqdo. ma aha waxaan wax dad gaar leeyihiin iyo group gaar leeyihiin, ma aha wax shakhsiyaad leeyihiin, ma aha. waa wax ummadda Soomaaliyeed ama mideyn kara oo wadajirkooda ka shaqayn kara, ama waa wax kala qaybin kara. madaxweyne ummadda ha kala qaybin, ummadaada ha kala qaybin. waxa kuu haray waa 2 bilood oo keliya yaa kuu haray. 2daas bilood dhibaato dalka ha uga tegin. haddii kale waxay noqonaysaa marka sida ugu sahlan, waa la qaatay kaba soo qaadba, waa la aqbalay. waxaa hadda aad bilowday oo runtii aad jidaysay in madaxweyne kasta uu yimaado oo sidii makhaayadii uu uga dalbado wax alla wuxuu rabo, sidii raashinkii uu yiraahdo anna intaasaan kala baxayaa, intaasaan keenayaa, intaasna waa ka tuurayaa. oday guddoomiyaha uu keensado oo yiraahdo ansax waay bas. xildhibaanada la isku dayo in lacag la siiyo oo dhaqaale la siiyo oo la kala laaluusho. waxaan rabaa inaan halkan aan ka sheego gabar qiimo badan oo Sareeda la yiraahdo, ilaahay khayr ha siiyo. Sareeda gabadhan waxay mudan tahay in lagu daydo, mudan tahay. waxa weeye waa gabadha kaliya oo tiri aniga codkayga iyo dadnimadeyda iyo dadkaan mathalo qiimo ma joogaan, lacag ma aha. gabadhan waxaa loo ofargareeyey lacag 100,000 ah. maalin walba waxay ugu darayaan 50 aan kugu darnay, waa la gorgorinayaa. ilaahay khayr ha siiyo. dad bay mathashaa, dadku qiimo ma joogo. ma qofka qiimo jooga iyada kaliya ma aha. waa ogahay mushaharkeed inuu ku yar yahay, waa laga yaabaa. nolosheeda inay ku adagtahay waa laga yaabaa. xaalad adag inay ku jirto waa laga yaabaa.
laakiin damiirkeeda Soomaalinimo waxay siisay inay tiraahdo anu qiimo ma joogo dadkan matalan qiimo ma joogaan ummadda Soomaaliyeedna qiimo ma joogaan ee lacagtiina haysta waa taas maxaa ka halaabay quruxdaas ay leedahay waa nooshahay waa noolaantanta insha Allah gabdhaha Soomaaliyeedna waa runtii uga mahad celinay kulligood ragana ha ku daydaan insha Allah arinta dhabta ah oo isku haya marka dastuur ma aha arinta dhabta ah oo isku haya waxa weeye laba bilood ka bacdi maxaa dhacaya 15 May sanadkan wixii ka dambeeya markii sharciyada iyo mandate-ka uu madaxweynaheena ka dhamaado maxaa dhici doona aniga walwalkii ahaya xaqiiqatan waa taas waa fahmi karaa waxa uu ka hadlayo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaheena waa fahmi karaa wuxuu ka hadlayaa qof yocod waa sax weey waa loo baahan yahay kulligeena waa ku raacsanna diyaarna u nahay inaan kula tartano qof yocod laakiin xaqiiqatan waxay tahay Xasan Sheekh Maxamuud uma socdo qof yocod wuxuu u socdaa extension hadda muxuu ka qaban karaa qof yocod laba bilood baa hartay waxaan heshiis lagu ahayn uu ka shaqeynayaa maxaa laga qaban karaa qof yocod waxaan rabaa inaan la wadaago aniga xilligeygii oo aan ka soo bilawnay 2017 waxaan bilaabay markaas inaan qof yocod ka shaqeeyo waxaan empower gareeyay guddiga doorashooyinka xalim yaray ee madaxda u ahayd ogaada waxaa magacaawday Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore madaxweynaha hadda jooga markaas hore yaa magacaawday ma kala dirin maxaa yeelay aniga daacad bay iga ahayd qof yocod in la aado waxaan magacaabay team igala shaqeeyay qof yocod uu hogaaminayo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda maxamed Abubakar yaan u magacaabay isagana team yu samaystay wuxuu bilaabay inuu ka shaqeeyo qaabkii aan ku galin lahayn qof yocod sanad gudaheeda wuxuu keenay model la yiraahdo hal deegaan doorasho iyo maxaan ku yiraahdaa single constituency iyo close list doorasho la yiraahdo oo qof walba meesha uu joogo uu uga codeynayo xildhibaanku rabo hadduu Kismaayo joogo hadduu Dhuusmareeb joogo hadduu Garowe joogo hadduu joogo maxaan ku yiraahdaa meesha la yiraahdo Gado joogo meel alla meesha uu rabo uusan xildhibaanku deegaan gaar ah aan laga dooranayn iyo liiska musharaxiinta oo banaanka la keeno oo qof walba u yaqaano meesha uu kaga jiro madaxdii markaas joogtay xilligaas joogtay ee federal member state-ka ahaa oo aan ku kulanay Baydhabo waan ugu raaceen waana committedna waa sameeyeen waana saxiixeen waa ku heshiinay modelkii aan ku heshiinay waxaan ku heshiinay qof yocod inaan aadno raalli ka ahayo waa saxiixnay in qof dalku aado qof yocod kadib waxaan geynay baarlamaankii markii aan geynay oo aan la xiriiray markaas labadii madaxweyne ee iga horeeyay Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh waxay yiraahdeen hawshu waa tana horaan u wadeennaa baarlamaankan geynay baarlamaanka guddiga ay qaban doonaan oo doorashooyinka idinkuna dad soo dirsada waxaana waa wax noo dhaxeeya arrintan dhexdeeda taalaaye aan ka wada shaqeyno gudoomiye Mursal wuxuu ka shaqeeyay in guddigaasi uu ahaado guddi ummadda Soomaaliyeed ee u dhanta mucaarad iyo muxaafid waxay soo saareen sharci keega ka duwan sharciga leeyihiin ay soo saarteen sharciga markay soo saareen waa ansixiyay oo waa saxiixay kadibna waxaan bilaabay in aan la hadlo madaxdii iga horeysay Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh oo waliba ilaa 4-5 jeer aan telefoonka isla galnay si aan uga wada shaqeyno qof yocod markii ugu dambeysay waxay yiraahdeen madaxweynuhu Puntland iyo Jubbaland qayb kama ah sidaas darteed qof yocod ma qaban kartid kula noqon iyaga waxay raali ka yihiin kala shaqeey kadib waxaan raadiyay dowlad goboleedyada sidaasay ku timid Dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo 3 oo aan kala hadalnay madaxdii dowlad goboleedyada waxa ay rabaan xitaa aan isku daynay noocii ahayd tii hore oo 2016 ka ahayd
oo lagu galay doorashada oo konton koodii inaan badino oo aan gaarsiino 300 400 xildhibaankiiba waa ku heshiiyay dad kamid ah dowlad goboleedyadii ayaa taasna diiday ogaada dalku waa kala jaban yahay marka waxaan ku khasbanaaday marka inaan tanaasulo waa khasab sababtu waxay tahay laba ku banaan markay meeshaas marayso waxa ku banaan dalka inaad isku hayso oo dalku uu mid yahay oo doorasho loo dhan yahay oo consensus ah oo wada ogol ah in la galo iyo dalku inuu galo parallel process oo uu kala tago dalku kala tago oo midnimadii iyo wadajirkii dalka ay meeshaas ku lunto waxaan ku khasbanaaday in dowlad goboleedyadii iyagu ay soo qortaan noocii ay rabeen anigoo fiirinaya sidaan isku hayn lahaa dalka inaan isku hayo dalka yaa ii muhiimsan iyo inaan helo anigu waxaan rabo iyo waxaan jeclahay taasaa keentay in doorashadii dadbaneyd oo September 17kii lagu heshiiyo insha Allah waxaan sameyn doonaa interviews yaan sameyn doonaa wareysiyaan sameyn doonaa oo si details aan uga hadli doona insha Allah mustaqbalka laakiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud labadaas u banaan mid saddexaad madaxweynuhu kuma banaana waxa ku banaan inaad dalka isku hayso dowlad goboleedyadaas hadda jooga inaad u yeerto oo aad talada siiso oo talada dhexda aad dhigto madaxweynuhu waxa ka dhabeynay hadalka madaxweyne Donald Trump uu yiri Soomaaliya dowlad ma laha arintaas arin adag weey madaxweynahaasi wuxuu aaminsan yahay annaga inaan dowlad ahayn laakiin run ma ah dowlad waan nahay adaa madaxweyne noo ah laakiin ha ka dhabeyn hadalkaas madaxweyne Trump uu leeyahay Soomaaliya dowlad ma laha ha ka dhabeyn haddii aad jidkaad ku sii socoto xaqiiqatan Soomaaliya waxay ku tagaysaa jid khaldan ama jid soo jarmay iyo ku tagaysaa halkaasna waxa rumoobaya hadalkiisa madaxweynahaas oo yiri Soomaaliya dowlad kama jirto arinta saxda ah waxay tahay inaad noqoto oday Soomaaliyeed inaad noqoto madaxweyne tanaasul inaad noqoto oo dadkaaga isku haysato duruufo badan iyo xaalad adag yaa la galay cadow shisheeyaan seenaa dadkaaga u yeero doorashadaani kaliya ma qaban kartid doorasho aan lagula lahayn oo aan qayb laga ahayn oo Soomaali u dhameyn oo wada ogol aan ahayn consensus aan ahayn madaxweynuhu ma qaban kartid haddaad isku daydo 2 bilood baa ku harsan waxa ku sugaya ummadan Soomaaliyeed oo dhiban oo maciishadu cirka u martay waxa ku sugaya dadka la barakiciyay yaa ku sugaya dad badan oo cadow yaa ku sugaya shabaab yaa ku sugaya madaxweynuhu hadda waa fiicanta horena waa ku sheegay hadda libaxaad waxba diidi kartaa madaxweynuhu bisad ha noqon anaa soo arkay meeshaas ha noqon halkaas ha aadi halkaas wax fiican ma aha hadda waxba haysataa adigu waxba dhihi kartaa saana rabaa hadduu waqtiga ka dhamaado madaxweynuhu bisad baad noqonaysaa annagana kuma rabno inaad bisad noqoto arinta ku xigtaan rabo aan rabinaan ka hadlo waxa weeye arinta barakacayaasha dadka masaakiinta ah oo tabaalaysan oo maciishada ay qaali ku tahay nolosha inay qaali ku tahay dadkaasi haloo noxo yaa la barakicin madaxweynaha dalka madaxweyne ka ah dadkan dadkaagii waay iyaga ku doortay sharafkoodii magacoodii yaad kuwan tahay karaamadooda haysataa maamuuskooda haysataa mar alla marka adduunka aadayso oo red carpet lagu dhigayo ogow gabadhaas masaakiinta ah ama carruurtaas Soomaaliyeed oo tabaalaysan oo barakicisay magacooda way ogow aniga cid ii dhigaysa carpet ma laha dadkan wax carpet u dhigaya ma laha laakiin adiga waxaad nooga duwan tahay dadkaas tabaalaysan yaad matalaysaa therefore waxaa lagaa rabaa inaad daryeesho inaad u naxdo inaad u adeegto yaa lagaa rabaa maxaa yeelay ilmaha Soomaaliyeed oo la barakicinayo adaa mas'uul ka ah waa ilmahaagii way adaa yiri anaa mas'uul ka ah adaa qaad mas'uuliyadoodii adaa u dhaartay arinta ugu dambaysa abaaraha aan ku soo gabagabeynaya madaxweyne wali adiga mas'uuliyad ka saaranta inaad abaabusho
dadka Soomaaliyeed oo aad ku kiciso hadday yihiin ganacsato iyo cid walbaba aad baraarujiso in dadka tabaalaysan abaaraha dhibaateeyeen in la isugu tago oo loo gurmado waxaan ka codsanaynaa inaad campaign-kaas adigu hormood ka noqoto anuse waxaan gaarsiinayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dibadda gudaba ummadaas tabaalaysan ee abaaruhu dhibaateeyeen xoolihii waa ka dhamaanayaan mar dhow waxa ku xigay dadkii ha loo istaago waxa weeye qof kasta oo Soomaali ah oo awoodi kara ha ka qayb qaato khaasatan dadka diaspora ah halkii booyad waa $80 ama $150 meesha ugu daran waa awoodaan qof walba ha qaato in uu hal booyad meel alla meeshuu rabo uu gaarsiiyo si dadkaas tabaalaysan biyo loo gaarsiiyo waa mahadsantihiin hadalka intaas ku egyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh